waxaan sameynaysaa wadaniga ay wadanka dhiirigelinaya inaan qaado caawa heesaa ka mid ah qaad bal mid ka mid ah heesaa Somaliland dalkeena Somaliland ayo ninkay u ducaysama ayo waxaan deganahay madaxtooyo alla iga beere boqortooyo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل قد قدوا ونيسان ويو فاميلي أصحابتك كحر يو فاميلي وحيد الله هاي كسر هذا مقال عصب أنت أنا مقال جود قلنا كهر فضلنا عديان نوع عصب سبسكرايب النصار لايك شير كومنت أدي أدا وما سنتهاي أنت نوحر وحيد الله هاي أدي أدا وما سنتهاي أنت ولي أن وصل حرنان بلسنا عركتي مقال كنا وجاري فضلنا وحن كلها هاي وحبا كود دافي وح مهم أيا كود دافي وح بدن أو فائدة له أيا كود دافي ولينا وح آد أقصر بدن فائدة له هذه كانوا فائدينية dadka kalena faa'iideynaya ayaa ku dhaafi doona haddii muuqaalkeena uu kusoo gaaro fadlan like share iyo comment subscribe-kana qaybta dhankan gambalaalka guduudka ah click gambalaalkana furo si muuqaal walba aan soo dhigna uu kugu soo gaaro caawa muuqaal cusub ayaa inoo wadaa horta haddii ay habeen ku tahay habeen wanaagsan haddii ay maalin ku tahay maalin wanaagsan waxay ku tahay ba mise waxay idin tahay ba wanaagsan caawa waxaa inoo wadaa muuqaal ku saabsan caanimada dad waxaa jiro macnaha haddii la yiraahdo caan noqo مثلا عانا ما أنت تحي ما حد سمين له هذا وده أديك هان أديك داوانا لعله هدي عان لقى ديكو ما حد سمين له هاد أو أديك كلها بون مسكوا ونكسنا لها مركب مقال كاني وحال لو سميه إن برانكي برعاء ددنا عان هن أيا وحال لقى ديك عان ويوقف ودمر أيا وحال ليه هاي تتبع كتاجرة أدي شكل نوع عسى كدي بقفك وفرد بحيا لايك قف كان وحي وسمين لها هدو عان نقول لها أيوكو شيء مركب إلى دعوة مقالك تعال براه بلشة فنان وحيابنا نوعاسة ما حد سمين لها waxaan sameyn lahaa horta istaafiyo badan ma sameeysan lahaa horta hablaha deem maalin midta guursado ayaan furi lahaa saanta kale soo xareeg gali lahaa maramid waqtiga waa soo dhamaysan lahaa lacagta hadhiba magan lacagta igu yaraataan arkana mid kan ra'yigiisu ka hadlay wuxuu yiri marka hore waxaan sameeysan lahaa staff macnaha ciidan ayaan sameeysan lahaa si la ilaaliyo waxaan leeyahay marka dadka caanka ah hadii fanaan aad tahay mise hadii aad tahay youtuber hadaa tahay oo caan aan noqotid miyad u baahan tahay staff may balse qof caadi shacab caadi ayaa tahay madaxweyne ma tihid ra'iisul wasaare ma tihid xildhibaan ma tihid mid labaad wuxuu yiri waxaan guursan lahaa naago maalin walba mid baan guursan lahaa waan furi lahaa taas horta ninkan ra'yigiisu ka hadlay ka ragga ah ma laha boono in uu maanta guursado inuu furato kale guursado inuu furato kale si guursado waayo adina naftikaaga waxa waaye cid ku aaminaysa ayaan bijirin cid dhahaysa ninkan gabadha lagu dara mise gabadheena aan siisana horta ma dhacayso ninkan ra'yigiisu ka hadlay ra'yi ahaan qof walba ra'yigiisa lagu qiimeynaya marka wali wax baa soo socda ila daawada magan lacagta igu yaraataan arkana masaajid baan dhisayaa aan arkayna yaraatay masaajid baan taagaya waqtiga waa soo dhamaysan lahaa lacagta hadhiba magan lacagta igu yaraataan arkana masaajid baan dhisayaa عير مركي لعقت ويراته أو لعقت صوت أماته وأنا أركب مساعدك وأنا لعقت يا دماني هاي سلي لها وحن سمينا مساعدنا كفرنا الله روح هلا هدي أنا لعق هاي ستة دين تبو معنا الدم بكمل هيدو وح مساجد ومدرسة ست قفكة مسلمين تا ومدرسة ست وحبة مساجد مساكين معاون يسد بلسه وحاول لعقت أيات قصارين يسا بيتهم لعقت أيات أماته ومرك أسرة لندن تبركة إن مساكين عاويسد ومساجد أفرتد مثل مساكين وحقوق يسد تاسن معنا وياك تسنى يسا مركي أدوح وباهن تهاي وات الله أوصل وانيسا مركي أدوح وباهنين الله بتكفو وانيسا تاسن من خلدا laga garan lahaa maxaad sameyn lahayd wallahi hadii dunida dhan laga garan lahaa waxaan sameyn lahaa wallahi dadka aad baan jeclahay dunida laga garan lahaa waxyaabaha marka hadii ba lagu garan lahaa oo lagu garto maxaad sameyn lahayd waxyaabo kaftana dadka soo jiita ayaan ku sameyn lahaa waxyaabo kaftana dadka soo jiita ayaan ku sameyn lahaa another one ما شاء الله هرتق gabadhani waxay tiri hadii aan noqon lahaa qof shacab sameeysto oo caan noqdo oo la yaqaano waxaan sameyn lahaa dadkan madadaalin lahaa waan kaftamin lahaa waan u sheekeyn lahaa waqti ayaan siin lahaa horta waa sheeko aad iyo aad u wanaagsan arintan waa arin macnaa gabadhani hadii ay ilaahay u ka dhigo ilaahay ay noqoto qof caan ah oo ay lagu xirnaado oo baraha bulshada soo fariisato fanaan ha noqoto mise ha noqoto qof youtuber ah waxay noqon lahayd qof dadka ka qosliya
la sheekaysta waqti siiya kaftamiya magacayga waxaa la Bashiir Ismaaciil Cali dana Ismaaciil inaga sanad xidig inaga sanadka fanaanka dad yar baan ku dhashay horta waxaan ahay Bashiir waxaan ka sii ahay xidiga da'da yar fanaanka da'da yar bal ninkan fanaan umeeka balse asaga waxa waaye waa dadka qashinka cuno macnaha baan dooriyay waxaas marka wuxuu u egyahay nin dhinaca fanka jecel balse ma ahan fanaan hayaan ku socono haddii bay dhici lahayd inaad nin caanaad imikaaba dee caan baad oo fanaan baad sheegtay inaad tahay maxaad samayn lahayd waxaan samayn lahaa wadaniga wadanka dhiirigelinaya inaan qaado caawa heesaa ka mid ah qaad bal mid ka mid ah heesaa Somaliland dalkeena Somaliland tadalo la dusinayo Somaliland ka bogsaday dagaaladan waydan dareemayn dibdhiskay sameeyeen waydan dareemayn dararan diririraran another one horta ninka maasha Allah inkastoo uu si kala yahay macnaha qof oo aanan fiirin qof saqaansan uu yahay qof oo darbi jiif ah aan dhigi karin qofka aanan haysanin daryeel fiican marka waa nin wuxuu yiri fanaan ayaan nahay laakiin fanaan soo shaabaxsan ma ahan fanaan oo producer haysto oo abwaan haysto la xamiista haysto ma ahan balse waxa way qof ilaahay haybad uu ku dhaliyay marka wuxuu yiri waxaan noqon lahaa fanaan horta qof caan ah hadan leedih la noqo waxaan noqon lahaa fanaan marka aan aragna wuxuu sameyn lahaa qaybta koowaad uu soo qaatay wuxuu dhahay waxaan noqon lahaa qof qaada heesaha wadaniga ah wuxuuna hees macaan u qaadayaa Somaliland والله عبدي ولا وي عبدي مركو باد كسو دhow channelka Secret Jakarta su'aal baan ku weydiinaa hadii ba ay dhici lahayd inaad ahaan lahayd qof aad u caana oo dad badan ay garanayaan maxaad samayn lahayd oo macallimo hadhay in hoga baan mid caadeen adigu ma aqoon ya maxaad samayn lahayd waaba tayba ka soo qaad maxaan samayn lahaa misaa ku arkayba haysaw laamiyada iyo xulba waa laga yaqaan ninka wuxuu ku faanayaa caan baan bahayba waayo laamiyada luuq walba waa xaafada ku taalo oo xaafada ku yaalaan luuq walba waa laga yaqaanaa marka caan waaba ahayba already marka qof markiis hore caan si ahaa wuxuu su'aal weydiinaya wiilkiisa asaga su'aasha weydiinaya oo adiga maadan yaqaanin uu leeyahay oo ima taqaanid miyaa maxaa samayn la soo qabanaya in hogada waa in hogada miyaa isbedelaya dadka weydiiyeen ku garanaya ya ku garanaya horta Burco inay yihiin umaleena Misr Somaliland dhinacay ka tahay ma sheegi karo inkastoo aan aqoonin dhanka Somaliland iyo Hargeysa iyo gobolada ku yaala Somaliland in horta dadka qaar waa madax adeegin su'aasha la weydiiyo hal yiri maxaad samayn lahayd aan noqon lahayd qof caan ah oo ma waaba ku adeeg yahay waaba su'aasha jawaabteed ma bixinayo jawaab kale bixinaya hadii ba aad ahaan lahayd qof aad u caana oo dad badan ay garanayaan maxaad samayn lahayd waxaan samayn lahaa meeshan aan caan ku ka tagi lahaa hadiya meeshan caan ku noqotay ka tagi lahayd tusaale marka noo faafayalka maxay ugu jirtaa waxa leeyahay meesha dad dumarka ciyaal ku bartaan waa laga tagaa waa leeyahay markaas aad laajkiga ka tagi lahaa xagaad qabray ya meel laga qowla oo halkee marka tusaale teedu meel kasta noqotay caalamka meel kamid ah ninka waaba ka dareebay waxa la yiri idaa caan noqoto maxaa samayn lahayd meeshii aan caan ka noqday hadii ay ahaan lahayd Somaliland dhaxdeeda mise ay ahaan lahayd Soomaaliya mise gobol kamid ah Somaliland waan ba ka bixi lahaa waan ka haajiri lahaa oo gobol kale ayaan aadi lahaa mise meel wadan kale aan aadi lahaa waayo wuxuu yiri meesha hadii ba aan ku caan noqday waan baxaya dad kale raadsanaya shacabka waa barteen shacabka kale raadsanaya qof dad badan gar maxaad samayn lahayd haddaan caanahay cid walba waan ka dhici lahaa ma adiga ya cid walba waan ka dhici lahaa faafay tusaale ya noo faafayalka waxaan uga jeedaa cid walba waan ka dhici lahaa qofku dadku had iyo jeer qofku markuu caanka yahay iyo markaan caanka ahayn isku nooc wala xiriir lama sameeyo nooc wuxuu doonaba ha noqdo marka hadda qofku hadduu caan noqdo dad badan aan garanayn ayaa ku qasbanay kula soo xiriira marka aniguna macaadiga galmka Sakariya sumatada garameys macaadan ka dhici lahaa ya adiga ma ka dhici lahaa way ku soo dhaw marka okay wiilka wuxuu yiri hadii aan caan noqon lahaa xaafad walba aan tagi lahaa waayo qofka markuu caan yahay markuu caan ahaanba markuu caan yahay oo qof meel walba maraya qof walba oo meeshii ka dhow uu soo dhaweystaa waa la yaqaanaa oo qof la hadli karo la sheekaysan karo laakiin qof aadan aqoonin oo aadan baraha bulshada ku arkin cid la hadlayso mise uu wacayso mise u yeerayso ma jirto marka wuxuu yiri
waxaaba ay biitaa wada waxay biitaa fursad oo cid walba waan gali lahaa guri walba waan gali lahaa marka horta muuqaalkan aad ayuu u dheer yahay mana ka gaarno waayo qaybo qaar waxa waaye aad ayay u dheer yihiin mar rabo muuqaalka inaan kusii dheeraado marka ninkii rabo in uu soo arko muuqaalkaasi wuxuu ka raadin karaa channelka Zakaria Jakarta dad badan ay yaqaan dad badan daawado wiilkan waa wiil su'aalo badan dadka weydiiyo su'aalahaas oo badana aad u qosol badan dadka qaar waa dadka macnaha uu su'aalka weydiinaya su'aasha ka jawaabaya ayaaba ah dad aad funny u ah sidaasna wuxuu ku sameeyaa muuqaal oo aad u qosol badan marka waxay leeyahay hadii aad muuqaalkan aragtay fadlan like share comment hadii aad nagu cusubtahay soo dhawo subscribe like share comment kana ilaawin aad iyo aad u maasantahay waxaan leeyahay inta mid lamid ah kulmi doon waxaan idinkaga tagay sidaas in nabadgelyo hana iga ilaawina channelkeena kale ee YouTube 52 waayo hadii aad intiga weysaan xagga aad iga arkaysaan hadii aad xag iga weysaan inta aad iga soo arkaysaan marka waxaan leeyahay asxaabta ku xiran You Family guul iyo gobonimo peace